When you feel it's hopeless, when you think that you've lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Please subscribe to Hal Abuur Somali channel. لا 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 يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان رمضان ده حياتي حيا أوقاتي يا رب صلاتي. sheekadan waxay igu dhacday 1970 maray ku beegneed taariikhda talaadadii November 23 1971 waxaana jira 23 sano waxaan ku noolahay Poland laakiin waxaan ka soo jeedaa Seattle mar dhowna waxaan u socdaa xaafadii Seattle sababtoo ah jira badan la igu yeeshay guriga waan dhiibi waayay boorsadeedii dharkeygan waan xirxirtay waxaana la noolaan doonaa waalidiintayda intaan shaqo fiican ka helayo iyo lacagta guriga la igu yeeshay kirada intaan ka dhiibayo waxaana ii harsaneed hal habeen guriga in laad la iga saaro sababtoo ah kirada ma dhiibin anna ma jeclaan xaafadda inaan aado waan ku caajisi jira markii dambe waxaan go'aansaday inaan aado baar qamri saa qamri u soo cabo darbigana waxaa ku dhagnaa 15 kun ku guuleyso markii dambe baarka qamrigan soo galay waxaan dalbaday koob qamro ah sidoo kale nin ay soo ag fariistay asagana qamro dalbaday oo uu ila hadlay waa wada sheekaysan wuxuu igu yiri Seattle u socdaa mideeda kale waxaan goostay first class ticket ha war macquul ma aha 305 flight macnaha ticketka amaada leh ha aniga leh waa warniyo caadi ma tiidi maxaa halkaas Seattle ma u socota adna halkaas aan u socdaa goorma baxaysa mar dhawaan baxaya saaxiib anna waxaan ku yiri deniyo lacag la'aan baa ahayso saas darteedaan u baaqday ambaniyo lacag la'aan baa ahaysaniyo ninka magaciisa wuu ii sheegay laakiin waa ilaabay markii dambe waxaa dhiibay lacagta qamrada $5 ay ahayd waan bixiyay anoo bixi rabaa TV-ga waxaan ka maqlay waraaqadaha baqti nasiibka in la yeerinayo kadib waraaqadeeda la soo baxay wow waa waraayay $15,000 aan ku guuleystay inaan xaafadda ku noqdo kuma qasbani sababtoo ah hadda lacag badan aan helay kiradeydana waan iska dhiibaya maalintii dambe anoo xaafadeyda jooga newska waxaan ka maqlay diyaarad u soo socotay Siaya in la afduubtay haddaba daawadayaal waxaa idin sheegaynaa diyaarad u soo socotay Siaya 305 in la afduubtay ana aada u naxay waayo diyaaraddaas waa tii aan ku bixi lahaa ninka afduubtana wuxuu ahaa ninkii maalintii qamradan isla cabeynay magaciisana waa DB Kuba haddaba DB Kuba wuxuu yiri diyaaradda waa qarxinayaa haddii kale lacag $2,000 u baahanay lacagtii waa la siiyay baarashuuduna kaga booday diyaaradda saa u jeedaan halka cadeen oo ka hartana wuxuu ahaa taygiisa sidoo kale anna wallahi waa naxsanaa ninka magacuu ii sheegay magaciisana waa ilaabay waana qiso xanuun badan oo igu dhacday maalin walba newska waa laga soo daayaa ninkaas ilaa maantadaana gacan laguma dhigin DB Kuba waa tuug aad u weyn oo diyaaradaha afduubta lacag badanna ka qaata sidoo kale nasiib baa wallahi hadduu idilin maalintii waana qiso xanuun badan oo igu dhacday Lexar haddaba qisadan waa qiso dhab ah waxaana ka hadlay channelka la yiraahdo ogaal cusub ayadoo caadi ah sidoo kale ninkan la yiraahdo DB Kuba waa nin tuug weyn waana qiso dhab oo dhacday waana ku mahadsantiin daawashadii maalin maalimaha ka mid ah waxaa aaday maqaayad saa u dalbado qaxwo aad u macaan sidoo kale maqaayadan waxay caan ku ahayd qaxwooyinka aadka u macaan waan soo galay waan fariistay kadib waxaaba arkaba gabar yar oo atiriisho maasha Allah waaw gabadhaas caadi ma ahe waaw kaajala oo meeshan joogtay waaw waree gabadhan Bollywoodka caan ku tahay filmadeedana aad u daawadaa sidoo kale saaxiibteeda la joogtay saaxiibay filinkaada u dambeeyay Shaaruqan caadi ma ahayn waxaana dalbaday koob qaxwo ah iyo sidoo kale cake sidoo kale teleefankeygan wax ka baarbaarayay fariimaan jawaabayay ayakana inaan dhibo ma rabin markii dambe atiriishada koobka shaaha ka
atariishada kaajalna waxay tiri waan ka xumahay runtii raali noqo walaal may dhib ma laha adee atariisha caanaa tahay dee wax walbo igu daato dhib ma laha saaxiibey meeshaana cajiib aan isla joogna ani adi waqtigaa isla qaadanayna bye bye. maalintii dambe waxaan u soo noqday hoteelka saa u dalbada haddana qaxwo macaana sidoo kale meesha markaan soo galay waxaaba arkay boorso binki oo meesha taalo waraaqadna meesha way taalay ana waa yaabana waxaa islaa boorsadan meesha maxay u taalaa meelaan iska fiirfiiriya qofna muusan joogin kadib boorsadii aan furay gudaha waxaaba ku arkay wax iga nixiyay runtii gabadha meesha ka shaqeysa waxaan ku yiri boorsadan amay qof ka dhacday ma taqaana may saaxiib ma aqaano markii dambe waxaan go'aansaday waraaqadii meesha taalay inaan taaban boorsadii aan furay runtii marka boorsada furay aada u naxay waxaaba arkay mindi weyn oo meesha ku jirta atariishada kaajal dilaayay ahayd mindidana dad badan ay ku dili jirtay filinkii gubta ay dad badan ku baabi'isay mindidan oo baby doll ku jiray aada u naxsanaa markii dambe waxaaba arkay timo madow oo meesha ku daadsan timahana waxay u eejiin timii atariishada kaajal sidoo kale waxaa meesha ku sii arkay sawir runtii shakigayga dhab uu noqday sawirkaana ujeedaana wuxuu ahaa atariishada kaajal oo timaha jaratay gaanjeystarad weynay ahayd dad badanay dishay mindidaas dad badanay ku baabi'isay hoteelkaas maalin dambe kumaan noqon waana qiso xanuun badan oo igu dhacday asxaabay like saara waana ku mahadsantihiin daawashadiina hal abuur Soomaali haddaad ku cusub tahay subscribe dhe gambaleelkana furo si markaan wax soo dhigo ayuusan ku dhaafin. sheekadan waxay igu dhacday maraan jiray 11 sano sidoo kale ani asxaabteyda waxaan ku baashaalayna swimming poolka saacaduna waxay ahayd 4 saac oo habeenimo habeenkaasna wuxuu ahaa habeenka dhalashadeyda aada u faraxsanaa sidoo kale banaankana waxaa ku xirnaa biro anoo dabaalanay naxdin waxaaba arkaba nin isoo fiirnaa wuxuu igu yiri waan ku dilayaa wariyaahe maxaa u dabaalanaysaa habeenimada maxaa ka galan ku yiri naxdin runtii cabsi zaid ay igu jirtay saaxiibkii u soo sheegay wax walba saaxiibkii markuu ninka arka naxdin fulay xaar weyn buu ahaa wuu qeeli runtii walwali argagaxa igu jiray cabsi zaidna waa dareemay asxaabteyda dhammaan intii qabow dareemeen ka dhaxbaxeen swimming poolka jaraanjarada yarayna koraayeen anna markii dambe gadaala fiiri waxaaba arkaba ninkaan soo koraaya saliga oo igu soo dhow anna inta cararayaan orod uga baxa meesha waxaan soo galnay guriga albaabkan soo xiranay ninkaana albaabku nagu soo jibin rabay aad u qaraacay albaabka runtii wariyada fura ama waa idin jarjaraya wariyada albaabka ma furtaan waa wax idin roona ninkan wuxuu watay qoriga cricketka lagu dheelo sidoo kale waxaan isku qaranay kuraasta gadaashooda wariyada fura waa wax idin roon wariyaa ma baxaysa mise hooyada u waca mise booliisan kugu wacaneen waxa rabtiin waca wariyaa tuug xun baa tahay oo qaracay ka soco meesha aabaheeya wacay wax walba oo sheegay waxaan ku yiri aaba nin tuug baana soo weeraray oo ay xun oo joqoro ah aabbo naga soo gaar hogay baay waa dhiman rabnaa sidoo kale aada u cabsanaynay markii dambe caalamka yeeray saaxiibkeena aad u qeylinayay markii dambe waxaa imaado saaxiibkii aabihiis wax walba u sheegnay booliisku wacay aabihii saaxiibkiisna wuxuu watay xabad weyn oo soo baxsada wariyaa tuugo soo bax ilmaha yaryar waabsanaysa miya soo baxdaan inta wallaahi ina suxun ku dilaaye maalinta wixii ka dambeeyay ninkan maana arkin waana qiso xanuun badan oo igu dhacday fadlan asxaabay like saara waana ku mahadsantiin daawashadiina qisadan waxay igu dhacday dhowr bilood ka hor waxaa ahayn ani asxaabteyda Nasra Caasho Romaan iyo anigoo Raxmo ah markii dambe waxaan ku soo degnay garoonka iskuulkan wuxuu noo jiray 10 daqiiqo waxaa jira wadooyin badan oo loo maro iskuulka laakiin ani waxaan jeclaa wiishka inaan raacno dabaqiya imaanay dabaqa markaad gashid dabaqa u horeeya waxaa qaadanaysaa wiishka ama jaraanjarada wixii adig ku roon waxaa ahayn gabdho caajis badan wiishkii aan soo raacnay
markaan wada soconno aniga Nasre Romaan iyo Caasho ummadan xaman jirna waan qosli jirna ha 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 waxaa ahayn gabdho waalwaalan maalintaas aada u daahnay waay saaxiibteen Romaan aan sugeynay jawigana wuxuu ahaa jawi qabooba wax walba way fiicnaayeen markii dambe dabaqan soo galnay waxaan sugeynay wiishkii aan soo galnay sikadiisa markuu wiishkii isxir rabay nin baa gacantiisa meesha ka soo lalaadiyay wuxuu yiri iga fura waan geli rabaaye anna aadaan u cabsanay waxaan dhahnay ninka xaguu ka socdaa nin timo orange lahu ahaa raxmo waxay tiri weligii tuugada maana fiirin laakiin asxaabteyda kale aaday u qoslaayeen waxay la yaabanayeen ninkan foolxumadiisa iyo doqonnimadiisa gadaalna farasa uga sawirnaa ninka wuxuu lahaa timo orange iyo jaakad wasaq badanna wuu xirnaa iyo surwaal wasaq badan waa yaabaneen waxaa isle ninka xaguu ka yimaada saa u qoslaynay markii dambe waa naxnay wuxuu yiri safar wanaagsan waa idin cunayaa aadaan u naxnay runta markaan ka soo baxnay ninkii wiishkii ku haray wuxuu taabtay nambar kale soo meel kale uu aado maalintaasna xafiisa u soconay xafiiskana wuxuu ahaa cidlo wax jooga maysan jirin badanaa xafiiska markaa imaano asxaabta meesha ku jirtaa salaanaa laakiin maanta wuxuu ahaa cidlo xafiiska wax jooga maysan jirin raxmo waxay ahayd gabar cabsi badan oo baqasho badan waxay diyaar u ahayd inay ordo gadaali fiirisa ninkii wuuna soo raacayaaba wuu qoslay ha raxmooy waan ku cunayaa raxmana fulayay ahayd way carartay Nasre Caashi Romaan way igu qosleen ha raxmana fulayay ahayd waxay ku haysay war soo carar gadaashiina fiir markii dambe Nasre Caashi gadaali fiiriyaan way soo ordeen ninkii oo ku soo aadanay arkeen laakiin Romaan waxa maysan ogeen telefoon ku mashquulsaneed ada cabaar kadib waxay ogaatay asxaabteeda inaysan la joogin gadaali fiirisa ninkii oo ku soo ordayay aragtay warba ayay asxaabteeda aaway waxay ahayd gabar fulaya way soo orday ninkan wuxuu yiri waan ku cunayaa ninkan wuxuu ku hayay Romaanay ma noolaanaysid waan ku dilayaa raxmana waxay jeedaysay albaabka wiishka uu u furmi waa markii dambe qaylaan maqalnay gadaalan fiiriyay waxayba ahayd saaxiibtay Romaan oo la jeeday boorsadeeda anoo waxaan dhahay saaxiibtay Romaan maxaa ka rabtaa raxmo way soo orday anoo soo orday markii dambe waxaan damcaynaa badbaadiyo Romaan laakiin boorsada ku dhagneed waa badbaadin waxaa dhahay tan xal maaha ninkii aan ku jeestay ninkii anoo feer u sii wado way sii kala tuuray waa nin xun buu ahaa markii dambe uu ogaaday inaa dhulka ku dhacay saaxiibtay Romaan wuu sii daayay wuxuu bilaabay inuu timaha jiido timo isoo qabtay kor ii jiida anna waa qeylina Nasre Caashi way ii soo ordayeen si ii badbaadiyaan markii dambe Nasre boorsadii ku dhufatay ninka xanuun badan uu dareemay markii dambe waan soo baxnay banaanka imaanay raxmana waxay tiri weligee waxaan maana arkin raxmo way oysay Nasrena waxay u wacday booliiska wax walbay naga qoreen sababtoo xafiiska eberka u ahaana waxay ahayd kor xaflad weyn baa ka jirtay marka shaqo maysan jirin xafiiska ninkiina gacan laguma dhigin oo booliiskii maysan helin maalintii dambe waxaa aragnay ninkii oo ku sii socda dabaqa intaa cabsanaa gadaal u noqonay waana qiso xanuun badan oo igu dhacday mar dambe dabaqaas kumaana laaban